muslimiinta dalkan Malaysia ayaa maanta si weyn u xusay maalinta barakeysan ee Ciidul Adha. dadweynaha ku nool magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Malaysia ayaa saaka u dareeray goobo dhowr ah oo loo asteeyay tukashada salaada ciida. waxay indhahaygu qabanayeen dadweyne fara badan oo raxan u socda kuna labisan dharka ciida. Soomaalida ku nool caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur ayaa maanta waxay ku tukadeen salaada ciida jaamacadda Islaamka, iyagoona salaada ciida kadib yeeshay kulamo ay isku xog wareysanayaan si loo ogaado dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta Malaysia. haddaba salaada ciida kadib ayaa dadweynaha Islaamka ee ku dhaqan Malaysia waxay hambalyo u direen eheladooda iyo asxaabtooda ku nool daafaha caalamka. magacaygu waa Axmed Nuur Usmaan. dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta aad joogtiin ciid wanaagsan aan leeyahay, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. waxaan halkan ka ciid wanaagsan ka leeyahay familigeyga meel kasta adduunka joogaan iyo asxaabteyda meel kasta ku sugantiin. ciid wanaagsan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. anigu waa Maxamed Ismaaciil Bilaaji. halkan waxaa hambalyo ugu diriyay dhammaan intii magacayga iyo muuqayga taqaana. waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan kullu caam wa antum bikhair. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdullaahi Cigaal Qayliye. waxaan wax ka dhigtaa jaamacaddan UM Malaysia. waxaan muslimiinta dhammaan meel bay joogaan, qaasatan dadka muslimiinta Soomaaliyeed gaarsiinaya salaan aad iyo aad u qaali ah. ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. waxaan qaasatan halkan ka salaamayaa dhammaan familkeyga, asxaabteyda. qaasatan waxaan si gaar ah u salaamayaa xaaskeyga Farxiyo Xasan Cadde. waxaan kaloo halkan salaan uga dirayaa familkeyga qaybihiisa kala duwan, waalidkay, walaalahay meel bay joogaan, meel bay iga dhageysanayaan. guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel bay ahaadaan waan salaamayaa. asxaabta reer Malaysia dhammaantood waan salaamayaa, qaasatan reer Kuala Lumpur. muslimiinta meel bay joogaan waxaan leeyahay sanadkiisa kale ku gaara bashbash iyo barwaaqo. waddankeena Soomaaliya waxaan u rajeynayaa nabad iyo khayr iyo baraare. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari Malaysia untuk anda. Happy Eid Mubarak for everybody in the world, especially to the Somalians. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. magacaygu waxaa la yiraahdaa Bashiir Sheekh Axmed Maxamuud. waxaan dhigtaa jaamacadda International Islamic University Malaysia. waxaan rabaa inaan farxadda Ciidul Adha aan la sheergareeyo ama la wadaago muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal kullu caam wa antum bikhair. si gaar ah waxaan rabaa mar kale inaan tahniyada Ciidul Adha mubaarak meeshaan aan ugu diro dhammaan ehladeyda ku kala nool Soomaaliya, Holland, Ingiriiska, Sacuudiga iyo Suudaan. waxaa ugu horeysa hooyaday Arda Maxamed Diini Geedi, aabahay Sheekh Axmed Nuur Sheekh Maxamuud, walaalkay Cumar Sheekh Axmed Maxamuud, walaalkay Maxamed Sheekh Axmed Maxamuud, iyo walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud, iyo walaalkay Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamuud. waxaan sidoo kale tahniyadaas mid lamid la wadaagayaa asxaabteyda reer Malaysia. aan wax la wada barano. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair. bismillahir rahmanir rahim. kullu caam wa antum bi alf khair. anigoo ah Axmed Cabdiraxmaan Jaamac Bixi. waxaan halkan u tahniyadeynayaa ummadda Islaamka ciidan ciid mubaarak baan leeyahay. kullu caam wa antum bikhair. ilaahay ummadda Islaamka ha su keeno. ciidan ayaa waxay ka mid tahay ciido dhowr ah oo si wada jir ah looga ciiday wadamada Islaamka, iyadoona waddanka Malaysia lagu arkay xaflado dhowr ah oo lagu weyneynayo munaasabadda ciida. Axmed Abuukar Asaari, TV-ga caalamiga Somali Channel, Malaysia.